labadii asbuuc ee la soo dhaafay baraha bulshada waxaa gilgilay nin la baxay walaal qof kasta oo Soomaaliyeed ee aalada TikTok live ka soo noqda lacag giftiyo oo fooqal caqliga u diray ninka markii aan baaray oo wixii uu diray oo dhan aan isku dardaray 2 milyan iyo 800 kun ayay noqotay lacag ku dhow 3 milyan oo dollar ayuu wuxuu ku qarash gareeyay dad TikTok live ka ahaa cid artaba haato ku darso ninkaanu dadka Soomaaliyeed ma kala socna qof kasta oo Soomaaliya oo live ah wuu diraya qof kasta oo Soomaaliya oo uu arkay inuu dhiban yahay ama uu taageero rabo wuu diraya ummadii Soomaaliyeed oo dhan ayaa afka gacanta saartay war waxa la yiri ninkan lacagtan hagu ka keenay adiga ayaan ku weydiinayaa qof lacag iskaga ciyaara ma jira ninka adduunka ugu taajirsan ba noqday qof lacag iska bixinaya ma jira ma aaminsan tahay inuu jiro qofkii ka soo horbaxaba lacag 80 kun 90 kun 100 kun siinay ninkan baaritaan baan ku sameeyay muddo 3 maalmood ayaan baarayay haddaba qaabkeen u baaray waxaan isku dayay marka hore qofkan qofku uu yahay inaan ogaado labo lambarka 888 meesha ugu qoran waxa uu ka turjumayo inaan ogaadana waan raadiyay googlaha ayaan ku qoray muxuu yahay lambarkaas sida halkan ba kaaga muuqata waxa ii soo baxday sida qoraalkan ba uga jeedid lambarkan in loogu talagalay dadka awliyada ilaahiyada in loogu talagalay wala xawla wala quwwata illa billah waa dambi weyn waay halka waa ku qoran qaaman u fasir xitaa ma garanayay af Soomaaliyan qaaman ugu fasir ma garanayo sababtoo ah dadka gaalada sida wax u fasirayaan iyo anaga muslimiinta saan wax u fasirayno marka la yiraahdo ilaah iyo awliyo iyo diin marka la yiraahdo waynu kala duwanahay isku soo wada duubo markaan baaritaankii sameeyay inaan ogaado qofkan qof uu yahay waa soo saari waayay dad walba la xiriiray dad siyaasiyiin la xiriiray dad social media ugu afdheer baan la xiriiray dadka follow u ah ay contact gareeyaan baa la xiriiray qof waliba wuxuu ku leeyahay ninkan inuu isku ka sheegana ma rabo magaciisa dhabtaana sheegi maayo codkiisa in la maqlana waa ka cararaya dadka qaar waxay ku leeyihiin lacagta noocaas qof Soomaaliya ma haystaba waa madaxweyne dadka qaar waxay ku leeyihiin waa Caadi Sheekh Maxamed oo farmaajo qolaba meel bay u qaadeen aqliga yarka baan ku darayaa adna qaybta soo commentiga fikradaada nagula wadaag ninkan anigu waxaan aaminsanahay sida meesha ku qoranba inuu ninkan u qolashay diina ka tirsan yahay lacagtuna in bilaash ku soo gasho oo lacag u shaqaystay aysan ahayn in mashruucan shayaadiintu la og yihiin oo rabo dadka Soomaaliyeed inuu marka hore isbaro kadibna inta dhuuntu duleesho ee lacag doonka oo looxiyo qolada ku daro 5 qof 10 qof 20 qof inta uu helaba asagu waa nin ku soo tala galay qolada ugu shaqaynayo shayaadiinta 8 wada isticmaalana way la og yihiin wax raali ka yihiin maanta waa kaas qof kasto Soomaaliyeed inuu falow gareeyo raba qof kasto Soomaaliyeed muuqaal buu ka duubaya qof kasto oo muuqaal duub qaarna waa amaanayaan qaarna waa qaynayaan annagu lacag kama rabno ilaahay baan ugu sida runta baan sheegaynaa dadka ugu waaweyn ugu afdheer social media way soo amaanayeen insaan way waa nin dadkiisa jecel qabyaalada ka carara lambarka hadduu iska tiri lahay oo walaal bas uu ku soo qoran lahay waynu aamin lahayn kuwa baahiyo beer ku madow ayaa 8 aamini doona deetana magacyadanadan ku qoranayna dhahayaan ujeedka meesha laga leeyahay waxa weeye walaasha leeba iibinaye waxa la iibinayaa lambarka 8 macnaha isfaan horta walaal waa walaal guud laakiin lambarka 8 weeye waxa la rabo in dadka laga iibiyo ha ku kaftoomin walaalkayo diintaadana ha iibsan dhaqankaadana ha iibsanin ninkaana nin normal oo sax ah oo Soomaaliya oo muslina ha u qaadanin